XXXTentacion magaciisa dhabta ah Jesse Edwin Ricardo Onfroy wuxuu ahaa fanaan Mareykan ah oo caan ku ah muusiga raabka, hip hopka iyo emo rap. wuxuu dhashay 23 Janaayo 1998 wuxuuna geeriyooday 18 Juun 2018 isagoo 20 jir ah. Assalaamu calaykum kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal. Kani waa XXXTentacion waxaan halkan uga hadli doonaa qisadiisa oo kooban. Haddaad tahay markaa ugu horreysa soo booqata kanaalkeena fadlan subscribe iyo like noo saar halkeen aan u gudagalnay qisadiisa. Jesse wuxuu ku koray gobolka Florida dalka Mareykanka. noloshiisa caruurnimo waxay ahayd mid adag oo ay la socdaan dhibaatooyin qoys, rabshado iyo xiritaan. wuxuu bilaabay muusiga isagoo dhalinyaro ah wuxuuna si dhaqsi ah caan ugu noqday baraha bulshada gaar ahaan dhankaas iyo SoundCloud isagoo ku caan baxay heeso badan sida Look at Me, Sad iyo Moonlight. muusigiisa wuxuu taaban jiray mowduucyo murugo leh sidii murugada niyad-jabka, jacaylka iyo nacaybka, taasoo keentay inuu helo taageerayaal badan oo dhalinyaro ah. inkastoo uu caan ahaa wuxuu ku jiray dhibaatooyin sharci. waxaa lagu eedeeyay rabshado gaar ahaan kiis la xiriiray weerar gabar saaxiibtiisa ahayd. sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inuu garaacay saaxiibtiisa taasoo dhalisay muran badan. dhibaatadiisa sharciga waxay keentay dadka qaar inay cambaareeyaan halka kuwa kale ay yiraahdeen wuu isbedelay, fursad hala siiyo. isagoo dacwad ku socota ayuu dhintay. wuxuu geeriyooday 2018 kadib markii koox burcad ah ay toogteen xilli uu baabuur ugu jiray Florida isagoo doonayo inuu iibsado mooto. XXXTentacion waxaa loo arkaa mid ka mid ah fanaaniinta ugu saameynta badan ee jiilkiisa. inkastoo noloshiisa ahayd mid muran badan leh, muusigiisa weli waa la dhegaystaa wuxuuna saameyn ku reebay fanaaniin badan oo ka dambeysay. aan ku fahansiiyo qisada XXXTentacion si aad si fiican u fahanto noloshiisa, muusigiisa iyo sababta uu u caan baxay. aan ku bilaabay noloshiisa hore. wuxuu ku dhashay Plantation, Florida 23 Janaayo 1995. wuxuu ku koray nolol adag. waalidkiisa si fiican uguma aysan qayb qaadan korintiisa. caruurnimadiisa waxaa la socotay rabsho iyo dhibaato. wuxuu marar badan la dagaalay ardayda isku fasalka yihiin. bilowga muusigiisa wuxuu bilaabay muusiga isagoo 16 jir ah. magaciisa fanka ee XXXTentacion wuxuu ka yimid ereyga XXX oo uu sheegay inuu matalo waxyaabo qarsoon ama xanuun leh. wuxuu caan ku noqday SoundCloud isagoo sameeyay muusig culus oo dareen leh, emo, trap, punk, rap isku dhaafsan. heesihiisa ugu caansan sidii Look at Me heestaas ayaa si weyn u faafisay magaciisa. Sad waa heesta ugu caansan ee uu sameeyay gaar ahaan kadib dhimashadiisa waxay noqotay mid malaayiin daawasho ah leh. sidoo kale Moonlight, Jocelyn Flores iyo Changes dhammaan waa heeso xanuun badan oo dadka qalbiyadooda taabtay. geeridiisa 18 Juun 2018 isagoo 20 jir ah wuxuu tagay dukaan mootooyinka River Motorsports ku taala magaalada Deerfield Beach, Florida. markii uu baabuurkiisa u soo laabtay waxaa soo weeraray 2 nin oo hubeysan. way toogteen lacag iyo alaab ay ka qaateen. wuxuu ku dhintay goobtaas. geeridiisu waxay ahayd mid dil qorshaysan ah. inkastoo uu dhintay isagoo aad u yar, muusigiisa ayaa saameyn weyn reebay. waxaa la sii daayay heeso iyo albuunyo kadib dhimashadiisa. dad badan ayaa u arkayay halyey ka hadlaya murugada iyo niyad-jabka ay dhalinyarada la tacaalaan. halkan haddaanana soo gaartay waa mahadsan tahay. la soco sheekada hadday ku cajabisa qaybteeda labaad. Your dreams. Fuck what anybody else tells you to do. Follow your dreams. You hear me? Follow your dreams. Everyone have a good day, all right?